سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتي با ملك سو joogtaan kusoo dhawaada warka galabnimo ee telefishinka JMN waxaad la socodsiin doontaan igu Aysri Ibrahim Aadan Israhabi qodobada warka ugu door karoona waxa kamid ah in ka badan 100 haween oo ka tirsan iskaashatada hooyo ayaa wax ka bedelay noloshooda iyagoo ka faa'iideystay barnaamijka dhaqo dheefsoo kaasoo fursad u siiyay inay horumariyaan wax soo saarka malabka in ka badan 100 haween oo ka tirsan iskaashatada hooyo ayaa wax ka bedelay noloshooda iyagoo ka faa'iideystay barnaamijka dhaqo dheefsoo oo fursad u siiyay inay horumariyaan wax soo saarka malabka waxaa darbeeris lagu sameeyay gudaha kuuliyada xirfadaha kala duwan iyo farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu dar corona haatan ugu soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan in ka badan 100 haween ah oo ka tirsan iskaashatada hooyo ayaa wax ka bedelay noloshooda iyagoo ka faa'iideystay barnaamijka dhaqo dheefso oo fursad u siiyay inay horumariyaan wax soo saarkooda malabka faafahinta warkaasina aynu gudubno barnaamijka dhaqo dheefso waxa uu kamid yahay barnaamijyada muhiimka ee heer dal iyo heer deegaanba laga hirgeliyo kuwaas oo lagu doonayo in lagu gaadho isku filaansho dhanka wax soo saarka kala duwan ee xoolaha sanadii ugu dambeeyay deegaanka Soomaalida waxaa ku soo badanayay shirkadaha habka iskaashiga u abaabulan kuwaas oo ku hawlan sidii kor u qaadi lahaayeen wax soo saarka ay kamid yihiin malabka oo kunta caanaha sidoo kale waxyaabaha la halmaala mid kamid ah shirkadahaasi waa iskaashatada hooyo oo xarunteedu tahay magaalada Jigjiga shirkadan oo aasaasan haween hooyooyin kuwaas oo midiyay fikrad iyo dadaal ay ku doonayaan in kaalin mug leh kaga yeeshaan horumarka wax soo saarka deegaanka iskaashatada hooyo oo aan xafiiskooda ku booqanay ayaa waxaan ugu horeyn faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sidii uu bilowday fikirkan aasaaska shirkadda naga siisay maamulaha guud ee iskaashatada Marwaxa waa Cabdi waxay ahayd 2 sano ka hor markaan aasaasnay ana waxaan ahaa qofkii markaa bilaabay hasaate waxaan nahay hadda 103 dumar ah oo shirkadda ku jirta shirkadda nooceedu waa iskaashato iskaashiguna waxa weeyaan in dad inta isku yimaadaan wax isku darsadaan soo 103 dumar waa isku yimiday oo waxay hayeen isku kordhistay marka waxaan ka aasaasnay qabilaygan 22 ama meesha loo yaqaan Xoodley waa Silk Airport marka in yar la dhaafo xarunteena weyn xagaas bay ku taalaa muddada markaan isku imaneynay waxay ka bilaabatay shirkadda waxa jirtay shirkaddan ka horeysay oo malabkiina ka shaqeyso saxarla la dhaho shirkadaas baa markaa isla qabilayga ku taalay kadibna maalmaha kamid ah baan annagii dumarkii xaafadda inta isku yimaadeen ay dhaheen bal ka warrama hadeen inaguna fursadan maadaama shinnidu meesha ku dhaqmi karto ra'ay noocaas oo kala ah ku timiday support baan ka helnay isla marka hore saxarla laftigeedii oo ah shirkad kale oo jirtay marka saas buu ra'yigu ku yimid oo ku soo bilowday dumarka badan ee marka shirkaddan ku jira waa isla dumar ah dadka xaafadda degan oo u badan dumar oo reer maxaa la dhahaa tuulo yar weeyaan meeshu oo garanaya dhaqanka shinnida sida loo dhaqaaleeyo ama loo hayo way haysteen khibrad hore sii haysteen dad ka faa'iideysan karay bay marka ahaayeen soo waxay ku timiday in ayna jirin marka cid badan oo deegaankan hadda malabka saa u soo saaraysay soo waxaan u aragnay inay tahay fursad banaan dadkina ay haystaan xirfadeedu oo ka shaqeyn karayaan annaguna markaan heli karaynay caawimaadeeda isla markaan muddo yar markaa shaqeynaynay waxaan ka helay taageero weyn baan ka helay xafiiska wala dhaqatada oo nagu garab istaagay marka arrintaas inay hirgasho iskaashatadan ay ku midoobeen in ka badan 100 haween ayaa wax badan ka bedeshay nolosha qoysaskooda sida marka la sheegayso maamulaha iskaashatada hooyo shirkaddan waa shirkad ka ballaaran ganacsi malab ka ballaaran weeyaan waa shirkad qoysaska caawiso oo intaas waxaan ku sheegay hadda waxaan nahay 103 dumar ah baan waa wada hooyooyin taas waa magaca hooyo ula baxnay marka shirkad income-keedu oo qoysaska yar yar gaadhayo oo wax tarayo weeyaan dhinaca marka laga hadlayo waxaan shaqaaleysiinaa isla dadkii shirkadda lahaa soo marka waxa ka shaqeeya hadda 30 qof baa ka shaqeeya oo 15 kamid ay yihiin dumar kale oo gooyo malabka soo gura nadiifiya dejiya packaging ka sameeya ilaa iyo suuqa hadda arkaysid oo qaybtooda ay leeyihiin suuq geyn dhanka kale
maamulaha ka warbixinaysan noocyada kala duwan ee malabka ka iskaashato ahaan soo saaraan ayaa tibaxday in isticmaalka malabka bulshada deegaanka Soomaalidu faa'iido kala duwan ka helaan. malabyada aan soo saarnaa inta badan waxay u badan yihiin laba nooc. labada nooc marka waxa kala duwan inta badan waa meelaha ay ka soo baxaan. tusaale ahaan dhinacan xadhiga airportka tan ugu taala waxa weeyaan ban bay ku taalaa. soo shinidu maxaa la dhahaa geedaha ugu badan ee haysataa waxa weeyaan ubaxyo. soo malabka inta badan waa cadaan, waa malab cad. dadka qayb badan oo ka mid waxay moodaan inuu yahay malab fake ah ama gacanta lagu sameeyay, laakiin waa malab dhadhankiisu aad u macaan yahay oo ay ubax ka samaysay, xataa udgoon buu leeyahay malabkaas. soo malabka ubax baa laga sameeyay, waxayna samaysaa xilliga uu dhulku ubaxa faraha badan leeyahay shinidu. malabkan dadka aadka u jecel waxay ku sameeyaan inta badan cuntooyinka la marsadaa. waa malab in la cuno ay fududahay. malabka labaad markaan haynaa ama noo soo baxaa waa kan madow. malabkan shinidu waxay ka samaysaa geedaha waaweyn ama waxaan manka u naqaan afka Soomaaliga. kan inta badan ubaxyada yar kama samayso. malabkan wuxuu nooga soo go'ay hadda kan aan gacanta ku hayaa shabeeladu ka yimid hadda. waxaana jira ku kale oo la mid ah isaga dhinaca dhagax leh nooga soo go'a. waxa jira kala duwanaansho kale oo anagu sidaan u soo bandhignaa. tusaale ahaan kan waa la nadiifiyay hadda fooyowga, kan lama nadiifin laakiin maragta xabag barshadiisa baa ku jirta. kan waxaa isticmaala markaa dadka jecel inta badan inay xabaga calaashtaan oo sida xanjaan bay dadku isticmaalaan. waxa kale oo isticmaala isqurxinta. gabdhaha ayaa aad waxay uga sameeyaan waxyaalahan wajiga lagu nadiifiyo scrub-yada iyo waxyaalahaas bay gabdhuhu ka samaystaan. ugu dambayna Marwaxa Cabdi maamulaha iskaashatada hooyo ayaa codsatay in laga caawiyo sidii taageerooyin kala duwan loogu fidi lahaa si ay uga mari dhaliyaan hadafkooda guud ee iskaashatada. waxaan u maleeyaa iskaashatada markasta taageero way u baahan tahay, mid technical iyo mid kaleba. taageerooyinkan u baahan waxaa ka mid ah ilaa hadda dhinaca shinida markaan ka hadlayo maanaan helin tababaro waxtar leh ama wax ku ool ah oo shinidina baraya sida si fiican loogu dhaqdo. ilaa hadda cilmiga aan ku tiirsanahay waa kii hore. soo codsigayga koowaad wuxuu ahaan lahaa inaan helo tababaro la jaan qaadaya cilmiga cusub ee shinni dhaqashada ah si malabkayga tayadiisu iyo tiradiisu labadaba kor ugu kacdo. waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan helo waxyaalaha ama dhinaca dhaqaalaha ee lagu kaabo iskaashatooyinka. waxaa jira oo kale tusaale ahaan marka la iskaashatooyinka lagu kaabo deymo yar yar oo la siiyo iskaashatooyinka haddii oo markay u baahan yihiin dhaqaala maxaa la dhahaa kobcin, ama waxaa jira waxyaalo oo deeqa ah oo ka yimaada. soo waxyaalahaas oo dhan waxaan jeclaan lahaa inaan ka helo fursad. waxaa dhirbeeris lagu sameeyay gudaha kulliyadda xirfadaha kala duwan iyo farsamada gacanta ee maamulka magaalada Jigjiga. warkaasina aynu wada daawano.
waxaa si weyn loo xusay xafladii xuskii socdaalka ahayd ee Tulume ee ka dhacday buurta Nabe waxaa si toos ah u soo gudbiyay telefishinka JMN daawadayaal daawasho wanaagsan Doodena meechade maafina daane bulukon kuni indaaru fanabdade mala yaadesa ayandoon suni oda karra koodura eenyutu dhufeetti dhibaabata hortee ganamaa male eenyutu cabbiisitti jaamsata oda kuni abbaa qabdi beekacha odaan kuni milkiin kuni jibuun kuni duudhaan kuni jaalatti hayyuun asaasa dhugaa jallattee sororsa gumee fi gumaani baasa harka dhiige qulqulleessa odaan mallattoo biyyaati ibsituu oromummaati jirma tokko damee sagaleeti kanaanistuu ilmaan oromooti. daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door corona waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Isra Ibrahim Aadan intaan warka xigay kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.